Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal soo dhawaada waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda koonfur galbeed ee Soomaaliya ciidamada taabacsan lafta gareen oo dhaqdhaqaaq aad u culus ka wada duleedka Baydhabo sidoo kale taliyihii hore ciidanka asluubta Generaal Mahad Shubka oo abaabul xoog leh ka bilaabay gobolka Gedo xilli lagu soo waramayo in halkaasi uu gaaray haddaba xogo iyo sidoo kale xaqiiqooyin ku saabsan ayaanu idiin soo gudbin doonaa iyo macluumaad aad xasaasi u ah inta guda galin marka koowaad soo dhawow muuqaalka la gareey sidoo kalena sii share gareey si dad badan xogteena ay u gaadho waa xagaaga duleedka magaalada Baydhabo waxaa ka socdo dhaqdhaqaaq aad u xoogan oo iska soo horjeeda oo ay halkaasi ka wadaan ciidamada taabacsan madaxweynihii hore koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen balse haatan sheegtay inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaalada Baydhabo warar aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in gobolka Gedo dhaqdhaqaaq aad u xoogan uu ka bilowday iyo abaabul kadib markii halkaasi uu gaaray taliyihii ciidanka asluubta xilka laga qaaday isla markaana xilkiisa ku waayay khilaafaadkii iyo sidoo kale isbedelkii ka dhacay koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kalena soddonka lafta gareen ah taliye shub ayaa lagu soo waramayaa in uu gaaray degmada Luuq ee gobolka Gedo halkaasna uu ka bilaabay abaabul ciidan sidii halkaasi uu ku xoojin lahaa ciidamada ku sugan duleedka Baydhabo ee doonayo in ay la wareegaan magaalada Baydhabo haddaba saan wax badan uga ogaano xaaladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale taliye Mahad Shubka in uu gaaray gobolka Gedo iyo in kale iyo xaqiiqooyin markaasi rasmi ah waxaanu waraysi la yeelanay saan wax badan uga ogaano Axmed Toronto oo qadka telefoonka aanu kula xiriirnay taliye shub iyo rag kale oo mas'uuliyiin oo ka tirsan garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa lagu soo waramayaa inay ku wajahan yihiin degmada Baydhabo khaasatan deegaanada ay joogaan ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen taliye shub waxa uu soo gaaray gobolka Gedo khaasatan degmada Luuq oo ka tirsan xigtana dhinaca koonfur galbeed Soomaaliya waxaa la sheegayaa halkaa inuu ka wado dhaqdhaqaaq xoogan oo uu ku taakulaynayo ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyadoo oo la filayo in uu dhinaca Baydhabona u safro saacadaha soo socda tallaabadani ayaa waxa ay u eg tahay in dagaalka iyo qorshihii ay rabeen ay wadeen markii hore inay isbedel weyn ay ku samaynayaan Laftagareen iyo kooxdiisa iyadoo aadan madoobana uu cabsi ballaaran wajahayay maalmihii ugu dambeysay waxaa la sheegayaa in ninkii ahaa aadan madoobe uu codsaday in laga qaado magaalada Baydhabo hase ahaatee fila Soomaaliya ay sheegtay in aadan looga fadhiyo inuu la yimaado qorshe uu dadkiisa iyo deegaankiisa isugu keeni karo oo aan loo baahnayn in culeysyada jira ee siyaasadeed laga dhuunto marka xaaladahaas ayaa ka taagan sidoo kale maanta magaalada Baydhabo gudaheeda iyo banaankeedaba dagaal ayaa ka dhacay kooban oo u dhaxeeyay ciidanka Laftagareen iyo waliba ciidanka dawladda waxaana la soo sheegayaa in dhowr meelood qaraxyo loo geliyay ciidamada dawladda oo khasaare uu ka soo gaaray waa tahay taliye shub suurtagal ma tahay in uu gaaro furimaha dagaalka haatan duleedka Baydhabo ay ku leeyihiin ciidamada taabacsan Laftagareen taliye shub ujeedada u socda wax kale ma aha waxa weeyaan hadafkiisu inuu tago ciidamada jooga duleedka magaalada Baydhabo uuna hogaamiyo ciidamadaasi sidii loola wareegi lahaa magaalada Baydhabana uu ka shaqeeyo sababtoo ah ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen bilooyinkii ugu dambeeyay waxay isu dayeen in magaalada la wareegaan hase ahaatee waa ay ku adkaatay oo taasi uma ayna suuro gelin in ay maaragtay ay tallaabadaasi ay ka rumeeyaan hadda marka waxaa la rabaa taliye shub iyo ragga kale la socdaba waxa ay doonayaan in ay fariisiyaan qorshahaasi iyo sida ugu dhaqsaha badanba inay ula wareegaan magaalada Baydhabo iyo deegaanada kale ee muhiimka ah ay suuragal tahay in ay maaragtay gacantooda ku soo celin karaan waan gartay waxaad sheegtay in saacadihii la soo dhaafay iska hor imaadyo ay ka dhaceen qaybo ka mid ah duleedka magaalada Baydhabo haddaba ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya dhawaanahan howlgalla ayay sameynayeen howlgalladii ay sameeyeen duleedka Baydhabo qorshuhu ahaa in ciidanka Laftagareen lagu riixo ma suurtageli leedahay mise weli amar buuxa lagu siin in ay toos u wajahaan ciidamada Laftagareen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxay isku dayayaan in ay riixaan ciidamada koonfur galbeed waxay u bixeen duleedka magaalada halkaasi oo
ay haddaba dagaal ay maaragtay ay isku foossaarayaan labada dhinac hase ahaatee ciidamada deegaanka waa ciidan aan garanaynin inta badan deegaanka lagu dagaalamayo meelaha muhiimka ah wajidadka la marayo howlgalka iyo dhulka loo geli karo khataraha ay la kulmi karaan yacni ma yaqaanaan oo dee horey ugamay dagaalamin deegaanada marka raggana waa rag deegaanka u dhashay oo dhulka kala garanaya ciidanka lafta gareen waxa caawinaya waxay tahay deegaanka iyo juqraafiga caawinaya ciidamadana dhulka ay ku cusub yihiin taasi waxay keenaysaa mar walba inay khasaaro badan ay la kulmaan shalayto iyo daraado kasii horeysaba khasaare lixaad la soo gaaray ciidamada xoogga dalka maantana sidoo kale khasaare ayaa soo gaaray dhimasho iyo dhaawaca soo gaartay meelo kala duwanna waa loo galay taasina waxay keenaysaa in kororka ciidamada dhimanaya ay sii kordhaan khasaaruhuna ciidanka uu kusii bato laakiin waxa weeyaan ciidanka bannaanka jooga ma soo afjari karaan wayna ku adag tahay in ay maaragtay si dhammaystiran ay uga howlgalaan waa tahay adamadoobe waxaa xogu ay tilmaamayaan in saacadihii lasoo dhaafay isaga iyo qaar ka mid a saraakiisha ciidanka ee ku sugan baydhabo inay isku maandhaafeen qaabka loo wajahayo ciidanka lafta gareen maxaad fakaysaa iyo saraakiisha hadda joogtaba ee hogaaminaysa ciidanka dowladda iskuma fiicna dantaa isku haysa mooyaane waxaana keenaya khilaaf xoogan oo maaragtay u dhexeeyey ka imaaday amarro kala duwan oo uu bixiyey oo sidii ay ahayd aan loo fulinin ragga hoggaanka ciidanka haya waxay og yihiin caqabadaha iyo dhibaatada intay leeg tahay iyo dagaalku inuusan wax sahlan ahayn sidaas darteed waxay siinayeen warbixino mar walba ay ku dejinayaan ama ay uga dhigayaan inay maaragtay amarkiisii ay qaateen iyagoo warbixinahaasaa waxaa ka dhashay cadaadis xoogan oo uga imaaday dhinaca aadanmadooda waana khilaafka keentay oo maaragtay ay isku khilaafeen marka xaaladdu mar walba aadanmadooda ku xun tahay dhinacii lafta gareen iyo ilaa hadda islamuusan xallin oo dagaalkii iyo culays badan buu kala kulmayaa dhinacii ciidamada iyo taliyayaashana waxaad moodaa inay sii kala dhimanayaan shalayta waxaa la sheegay inuu ciidamada Itoobiya ee jooga magaalada Baydhabo uu kulan la qaatay uu kala hadlay xaaladda amniga ee magaalada Baydhabo iyo sida wax looga qaban karo hase ahaatee waxay sheegeen inaysan iyagu shaqo ku lahayn arrimahaasi ammaankana looga baahan yahay ciidamada dowladda Soomaaliya inay ammaanka magaalada ay ka shaqeeyaan marka aadanmadoobe xujo adag baa hortaalla ragga kursiga ku fariisiyeyna waxaad moodaa hadda isaga iyo inay noqotay waxa weeyaan xabaal iyo ninkeed loo kala tag ee koonfur galbeed madax waa kaaga dhignay adiga iyo kartida adaa laga rabaa ayaa lagu dhahay marka caqabad adag baa haysata laba daran mid dooru ku jira waa tahay aad iyo aad